لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد waxaan jecelahay bayaan ama warmurtiyeed ay simadu soo saareen inaan halka ka akhriyo ajandaha ama barnaamijyada wixii ka dambeeyana insha Allah simada iga dambeeya ayaa ama faahfaahin doona laakiin anigu inaan bayaanka ama warmurtiyeedka akhriyo ayaan insha Allah halkan lagu soo taagay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku cidii ay khusayso ujeedo warmurtiyeed ka soo baxay istimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn shir wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen istimadu kana dhacay tuulada Higlada taariikhdu markay ahayd 28 ilaa 30 bishii 2016 kuna saabsanaa arrimo soo food saaray deegaanadan kor ku xusan sida la wada ogsoon yahay waxaa magaalada Addis Ababa ka dhacay kulamo lagaga hadlayay masiirka iyo mustaqbalka goboladan sidaas daraadeed waxay isimadu ka soo saareen qodobadan hoos ku qoran. kow waxaanu cadaynaynaa haddaan nahay isimada in aanan kulamadaas wax talo ah ku lahayn waxna ka ogeyn. waxaanu cadaynaynaa kulamadaas inaanan talana ku lahayn waxna ka ogeyn. go'aanada ka soo baxay wada hadalladaas ma khuseeyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maadaama aan lagala tashan shacabkooda. maradan shacabka lala tashan oo loo waramin oo markii la tegayay la sii waraysan shacabkooda ma khuseeyo talooyinka masiiriga ah. qodobka saddexaad waa number 2 qodobka saddexaad talooyinka masiiriga ah ee goboladan SSC waa la wada leeyahay kooxdaasina ama kooxina si gaar ah uma laha ama uma sheegan karto talooyinka masiiriga ah oo dadka mustaqbalkooda iyo aadahooda iyo jiritaankooda ka turjumaya kooxdaasi ama kooxo gaari si gaar ah uma sheegan karto ama uma sheegan karto si talada baahday loo ururiyo. number 4 number 4 si talada baahday loo ururiyo loona mideeyo wixii khaldamayna loo saxo waa in la isugu yimaadaa shirweynihii hore loogu baaqay ee caasimada gobolka Cayn ee Bohole. liiska isimada ama maaragtay go'aankan soo saaray ama saxiixay. number 1 Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale Guuleed Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe Durraan Boqor Cabdillaahi Axmed Cali Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed Garaad Maxamuud Cismaan Mashqare Garaad Saleebaan Buraale Aw Aadan Garaad Cabdillaahi Maxamed Guuleed Ugaas Faarax Maxamuud Cali wakiil Garaad Jaamac Cabdiraxmaan Buraale wakiil Ugaas Saleebaan Ciise Nuur. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إلهي وحكبر إن يسقى الغور رسنا وحقبت إلهي صلى الله عليه وسلم إلهي إنه لك كرغاض شاسوا بريادة إلهي هذا الكيد سبب يقهر وهدو أغريهاي يهدو أرايهاي ما نبيي waxaan isu taagay waa uu la adkeynayaa in la wada qabo hal ogaado maamulkeedadu u badan tahay 3 qodob ama 4 qodob baa qoran. waxa laga hadlayaana waa qayb waayada qaybna waa inta uu ka hadlay Garaad Cabdirasaaq oo ah abaarta iyo nabadda. horta taa hore waxaanu halkaa ugu shaqeeyay safar badan u soo galay oo shirkii saddexaad ay tahay inaanu idinku baraarujino dadka aanu mas'uuliyiinta u nahay shacbiga ah oo aan wax la yiraahdo qolaaqul sharaacis baa jire idin qolaaqul sharaacin oo aayihiina si yaro dhuumaala
dhuumaalaysi iyo meel ula marin dad loo dhuumaalaysi lagu xukumo waa ka badan tihiin waa ka ballaaran tihiin waa ka qadiyad weyn tihiin waxaanu shirkaa ugu baaqnay ilaahay baa wax dib u dhigay 16 bishii 6 iyuu ahaa iyo badasha haddaba la sheegay buuhoodle ilaahay isaga awood leh abaar baa inoo timi abaartaasaa dadkii oo gurbad biyood iyo gurbad nololeed ku jira dibad iyo gudaba shiraanu idiin qabano inay shirkii naga dhicsaynaysaanu u garanay waataanu bar dhexe fadhiisanay haddana nini inta abaarta ilaahay naga saarayo aynu helayno raxmaddii ilaahay aan dib u dhigano maantana shirkii sidiibuu u taagan yahay waa sugaynaa ilaahay baynu baryaynaa inuu raxmadda inoo soo dedejiyo lama kala furayo diyaargarowgii hadday ergooyi tahay hadday tahay qabanqaabo hadday tahay badashii la furfuri maayo ee waa loo diyaar ilaahay baynu ka sugaynaa inuu roob inoo shubo oo aynu markaa inagoo miyirsanay oo abaartii ka miyirsanay aayaheena isugu nimaadno markii horaan idhi dhuumaalaysi layskuma xukumi karo sida ay sabadii iga horreeya u sheegeen war marka siyaasad beeshaasi gelayso ummad weyntaa weyn ee beeshii gelayso waxaa dhaqankeedu waxa weeye ilaa waktigii weligeed ba ay tashanaysay ee siyaasad ka tashanaysay hawd iyo dhugaal inay isugu timaado oo aan cidilo maqnayn oo garangartaa intaasoo waayeela la saaray ee la idho soo taliya taladiinu ka soo baxdo laakiin 5 qof 10 qof ka yar ku dhow ma idin mateli karaan marka haddii wax wanaagsan oo la garanayo ku kacaan waxbay ma ahaan lahayd war inta warbixin laydin siiyey oo dawlado kale dalkood la tegey yaa haddana qoladay u tagayna la shireen beenisayba waxa iyagu idiin sheegeen wax dhuumaalaysi ah oo war yar oo laydiin sheegay oo baatada la maqashiiyey oo aan golo weyn tegin haddaa qaadateen dee qoladii kale ay wax ku qarsanayeen baaba ka shiftay marka tala kasta oo meel ku maraysaan tala kasta oo siyaasaddaa gelaysaan waa inaad u dhammaataan oo ninkii wax garanaya ninkii aqoon leh ninkii taladaasoo kale arki jiray ninkii hadda kacaya wax garanaya iyo lidhaahdo nin qura haddaan leeyahay dadkao dhan baa sheegaya rag iyo dumarba ciddii wax garanaysa inay taladaa ka bogato oo taladaa isku raacdeen oo meel mara inaad ku meel martaan taasaa lagama maarmara taasaananu idiin guddoominay cid gaar u mateli karta oo yara ma jirto xigtaa kooxaysa badan laftayadu saasaanu isugu duubannahay saasaanu kuwa naga maqanee qaarkoodna ula hadalnay naga qabaan ra'yiga intayadii isu timina saasaa saxiixa iyagii iyo go-aanka iyagii iyo guddoonkayagaa warkaysaan taas qodobkaa saasaan leedahay dhuumaalaysi ledinulka wax xukumi karo dhuumaalaysi idinma beteli karo tiro yar idinma beteli karto waxaa idin beteli karta talada weynaa ka tashateen isugu timaadeen taas baa aayihiinna iyo mustaqbilkiina la faa'iido weyn iyo meelmar u noqon karaysa taasaasaan ka hadlayaa nabaddana waa laga hadlay ku noqon maaye war markii hore waa lagu daalo isabadiina iyo waxgaradkiina iyo caaqiliintiina iyo waxgaradkiina waa idinku daaleen maantana rag baa idin diyaara oo maamul ka socda war ciddii nabadeeda weliba waxaan leenahay maamulka waa idinku garab taagana idinka awalna ciidamo usoo diray iminkana u heegana wixii fidma walaa xidhxidha oo meel dara ka tuura nabaddana waa idinku garab taaganahay fuliya oo shaqeeya taana intaasaa kaga baxaya idina u dhaga dhuglaada oo ka xishooda dadka oo ilaahay ka xishooda oo carruurtiina nin walba waxaad dilaysaa waa inadeerka walaalka seediga abtiga inabtiga waxaad dilaysaa waa kuwa hadhowna ishuri maysaane intiinu baa isu imanaysa guri walba tacsida mid dhito waa laga dhigaya saa u fahmo nabadda si buuxda u qaata isdhaarsada kaga dhabeeya ninkii walaalkii la diladow sabir ninkii wiilkiisa la diladow sabir ninkii aabihii la diladow sabir nabadda dambaa ka weyne saasaan idinku adkaynayna taana intaasaan ka leenahay abaaraha garaadkii waa halka hadloo ku noqon maaye de haddii la iscaawiyo unbaa ilaahay inoo naxariisanaya haddaynu isu naxariisano baa ilaahay inoo naxariisanaya aynu isu naxariisano qof waliba wixii qaban kara wax yar wax badan qofkii qaban karaaba
ha qabto wax badan iyo wax yar qofkii qaban kara iyo kooxdii qaban karta iyo jaaliyadii qaban karta caalimkana waxaanu u sheegaynaa inta warkaygu gaari karo war waktigii abaaro waa caalami ma aha wax oo masiibooyinka kamid yihiin ma aha wax beeli ka tashato ma aha wax koox yar ka talin karto war caalimkow intii cod dheer lehe caalimka gaadhsiiya dhibaatada taagan maamulada jirow caalimka gaadhsiiya waxaan kusoo gaabinayaa hadalka horea loo yidhi dadku markaan intaa halkaa ku jira shirayna daanihiina u soconayno dad baa wax dhinac kale u rogaya dad baa wax kale ka sheegaya war annagu waxaanu isugu dhimi oo bayaanada soo saarayna inaad tashataan oo aayihiina idinkoo isku dhan oo aan ciddan la tabayn aad meel dhigataan oo meeshaad baraysaan la bartaan laakiin wax qalada iyo wax daraanu leeyahay oo gaara iyo nin gaaru li midna naguma jiro aayihiina oo isku duuban annagoo madaxdiinii aa noo igmateen yaanu diyaar u nahay inaanu isu kiirkeenno oo aad taladiina ka bogataan oo wixii aayihiina aa markaa go-aansataan intaasaan kaga baxayaa ilaahayna haynala qabto ilaahayna waddada khayrka lahayna mariyo صلى على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد waxay ila tahay meeshatan laydiin sheeg waxa lagu hayo dadka joogana laydiin sheeg wixii lagu hayayna waad aragteen waxna qoraal baad ku arki doontaan waxna afkaad ka maqli doontaan oo dibadda adkaad ka maqli doontaan waxaan laba kelmadood aniga wax la yidhi 60 sannadood baad shaqaynaysay hadalkaagii wax ku hadlaysay waa batay waa farabatay waa dhammaaday waxba laga maqli waayay adiga waa ducada lagu reebay baa laygu yidhi adiga ducada baa la yidhaahdaa waxaan se ku horraysayaa laba qodob waan midna khayr cabdi leeyahay midna bahar same leeyahay khayr cabdi waxaan leeyahay cabdi garaad iyo khayr cabdi iyo qayaad saddexdaa magac baa laydin yaqaanaa saddexdaa magac baad ku ahaydeen dad wanaagsan oo ehela oo dalka wax u qabta oo dadka wax u qabta oo nabadgelyada ka shaqeeya oo wanaagsan baad ku ahaan jirteen war haddaad dagaalantaan oo wax dishaan oo wax kasta samaysaan magaca afraad heli maysaan ogaada magaca saddexdaa ka bedelan heli maysaan saddexdaas aad ahaanaysaan baarsamana waxaan leeyahay magac waxa la yidhi dadku waa jaban jaban iyo kaban kaban iyo jaban jaban iyo kaban kaban iyo jaban kaban 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 baad ahaydeen hadda sidaad u socotaan weligiin waxaa laydin ammaanayey weligiin dadka boqoraad u ahaydeen weligiin waad wanaagsanaydeen weligiin waad ficnaydeen waxaan garanayaa iyadoo lagu maro dhulka bahar samaan ahay dadka kalena godobooda leeyahay oo dadka lagu maro in bahar samaamaana baan garanayaa oo nabadgelyadii nucaynkaa tahay haddaad wax dishaan oo wax humaysaan oo wax maqli weydaan oo boqornimadii cisayn weydaan oo wixii laydin ahaa iyo waxa dadka u ahaydeen garan weydaan waxaad maanta samaysaan iyo waxaad dib ka samaysaan oo xun midna magac dheeraada ku heli maysaan ogaada taana ogaadaan idin leeyahay idinkana waxaan kaloo leeyahay waxa la yidhi habaarku kow buu ka kacaa tobanna waa ku dhammaadaa kow adoo keliya dhimaan la yidhaahdaa labadaadii waalidku habaartay saddexda qaba u ka qad afarta jahaaba ka hoog shanta diin islaamka seeg lixda iimaanka waa toddobada cadaabood ku dhac sideedda janna ka qad sagaal naagood ku dhaxashay toban tolka ay kaa dalaweydi war annagu idinka tala weynay haddaanu nahay dhulbahantay qabaayilkiisi iyo cuqaashiisi iyo garaadadiisi idinka tala weynay oo idin caal weynay war haddaad islaan tihiin oo ilaahay ka baqaysaan inaan tobankaas laga tala waayay inkaartaas idinku dhicin dadka kale maqla idiin soo gurmaday ummadda kale idiin soo gurmatay war maqla ee helada ah ee idinka xanuunsatay ee idin xamili weyday waxaad isku samaynaysaa war haddaan intaa aydaan raajinayn aydaan raadinayn tobankaas tagaarkooda inuu idinku dhaco war ismaqla oo dadka maqla oo dadka dariska iyo ehelka idiin imanaya war dadkaa dhegaysta oo maqla oo wax ka yeela haddaad annaga naga diideen annaga hadda habaar baa nugu hadhay wax duco noguma kii hadhin anugu haddeerto wax ma habaaro laakiin waa duceeyaa war hooy war ilaahay inuu nimco iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo sidaad ahayda idiin celiyo ummadda horta maqla dembigeenna allaha dhaafo dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidintaan allaha dhaafo ilaa abaar iyo aaran baa nugu kori ilaa abaar iyo aaran baa nugu kori ilaa abaar iyo aaran baa nugu kori ilaa mulk firida mooye dhexdooda ku barida mooye iyo kalka ku dhex barida ilaa naga yeel ilaa masooyinkana hareer mari ilaa wixii dhintay u naxariiso ilaa waxa nool looga daba naxariiso
إلى رسولك محمد هنقو حريري إلى ميتين حق يحرمنا نقول إذا حبال برد ون حريص إلى أن نوجد بن حريص إلى أولي باتدا عبارات عن نقمنه أدوم ما نجا فايدة كرا نجا حيدة كرا إلى ودان كبرينا إلى نغيا نبت بان هو يديسن إلى نغيا نبت بان هو يديسن إلى ودان وحنا ديقسين كرا إلى ودان وحنا جالسين كرا إلى ودان كبرينا إلى نجا دلغا عبارة إلى دبارة عبارة سومالي كدلغا إلى سومالي ورعلادي عبارة بحثته إلى ولا بد بعد سوري كره إلى ولا بد من نجا سوري إلى ولا بد من نجا سوري إلى ولا بد من نجا سوري إلى مرحلة تماما يا حتى لا تماما يو إلى نوها جاش إلى تجوكتنا حقتوس إلى تجوكتنا حقتوس إلى تيلا سمعنا يعني بدو نحسن توصل وأنا قلنا واحد ترته أدي أنا إنترامته أو كورته وحي عدو نود سد السياشة إلى وكدي إلى دبعتنا نجح حي إلى عبارة نجح حي إلى عذر في علاد نجح حي إلى عذر في علاد نجح حي إلى عذر في علاد نجح حي إلى دبعتنا نجح حي إلى دبعتنا نجح حي إلى نغيا نبت بان هو يديسن إلى نغيا نبت بان هو يديسن إلى وصل عالية هرب من النبت قلي إلى وصل عالية هرب من النبت قلي إلى وصل عالية هرب من النبت قلي إلى مكان هذا ومكان هذا برد تبرد نجدي إلى تبرد نجدي لو مرتان ديرتان نقطة لو تديرتان نجدي إلى مكان هذا ومكان هذا برد نجدي إلى مرتان ديرتان نجدي إلى علاد نجا سوري إلى علاد نجا سوري إلى علاد نجا سوري إلى مش شيء مش كلا بدنا نجا سوري إلى مدة صومالية دي بتضع حساتها إلى كحيد إلى كقرقاء إلى مدة ودن واحد باتها حساتها دي بتضع نقرقاء إلى وده نقرقاء ذكره إلى ويحب كدد الدنيا بعافية إلى ويعافى الغمال وسيادي إلى ويحد أنت ونحرسه إلى رسولك محمد آخر الله يعني وحريري إلى وميتدي حق يحرمنا وهذا نحرسه إلى تحوي هذا الوهرية تحوي هذا رسولك محمد آخر الله أفتر سنة إلى أبي هو ينوح تعبدناين ولا أيام نوح دمدوائين أنت أوله أنت أيله أنت يدله أنت هبرير له أنت الناس كانوا أمني كحكاني إلى هو نحرس إلى أنا نوجد من نحرس إلى أيام نحرس أنا نوجد من نحرس إلى إيمان كان وجود نقول نولي إلى إيمان كده مود الصوماليين تبوا كتير جرسية إلى كوسو علي إلى إيمان كوسو علي إلى نود قليل كوسو علي إلى بروقة كوسو علي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد سبحان ربي عزة عما يصفون والسلام على مرسلين والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بان مهدله سبحانه وتعالى سوو كان قوبتا خير كله إنو مارتي إلهامية إنو كهذا الله دنهينا قوامدي والدين أخري اسمدو أي قارين ما أنت الدلم مودي والدين أخري قوامداس وحانو قد شيدنا تلو إنكاس للشيء يو صوب حي وحانو أرقنا إنا أنا يهين مسلحة ومدني ودليا هاي waxaanu aragnaa maslaxad gaar ah oo dad gaari wataan inay tahay ummadda deegaankan deganna maslaxad gaar ah oo ashkhaas shakhsi ama laba ama ashkhaas ka badan ay leeyihiin dad ay arrimahooda gowrici karaan maaha waxaanu markaa leenahay arrimahaas waa sida looga hadlay dadka aan odayaasha u nahay dantooda maaha danina uguma jirto qodobo maaragtay la sharixi kari waayo oo dadkii soo gaadhay markay dadka u yimaadeen sharixi kari waayeen oo waxyaalaha la sharaxay ee dadka loo sheegay aanu ka maqalay waxa kamid ah maamul baa la fidinaya oo aanu maqalay dadka waxa loo sheegay maamulka la fidinaya waa maamulka Khaatumo kadibna ay cadeeyeen dhinacii kale maamulka la fidinaya inuu yahay maamulka Somaliland arrimaha dadkii watay ay sharixi kari waayeen ay dadkii u sheegi kari waayeen ay kala xishoodeen dadka inay u sheegaan ummadan laguma dhiqi karo laguna dhiqi maayo waxaanu leenahay dadkii arrimahaas haddaad sharixi kari weydeen haddii wixii aad ballan qaadeen dadka aad u sheegteen wadi kari weydeen haddii dani meel kale idinka muuqatay idinkoo mahadsan meeshaasaad insha allahu tacaala tegi doontaan waxaad noogu tegi doontaan dadkii aad ku ballanteen iyo dad deegaankanaba idinkuna caayi mayno idinkuna maagi mayno laakiin waxaanu aanaan idinka oggolayn dadkan tirada badan ee baaxadda badan ee maslaxadooda u baahan haddii ay ka tashanayaan iyo haddii ay cid la hadlayaanba inay ka bogtaan oo iyagoo ka bogtay oo waxa dadka lala hadlayo la yaqaano oo wuxuu mugdi aanay ku jirin oo waxa lala soo noqonaya wax la qarinaya aanay ahayn inay hadlaan loo baahan yahay dadka taladiisu sidaa kuma soconayso waana go'aan waana khasab dadkaas inaan lagu dareerin karin waxaas taa intaasaan insha allahu tacaala kaga gudbayaa dadka dhibaatada badani soo martay ee gobolada SSC dega
ee rafaadkas badani soo maray ee qurba joogku ka mid yahay ee dadka maaragtay baadiyaha degani ka mid yihiin ee dadka gobollada degani ka mid yihiin ee dadka degmooyinka degani ka mid yihiin ee shacabweynaha gobollada sool sanaag iyo cayn dega waxaanu leenahay dhibaato badan baa idinku dhacday wax badan baa idinka xumaaday hogaamiyayaal baa waxayna ka run sheegayn idiin sheegay waxaanu leenahay ha niyad jabina isu soo noqda isu imaada gobtu waxaa la yidhi waa cirtaa laakiin ma jabto insha allahu tacaala annana waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ku dadaalo inaanu geed isugu keenno oo shirweyne isugu keenno oo aanaan ka caajisin oo aanu dhaqaale u raadinno oo aanu horay idinku sheegnay oo imkaaniyaadkii shirkaa lagu qaban lahaa waxyaalo kamidii diyaarsan yihiin waxa dhimana idinkaa soo dhammaystiri doona shirkaasaad talada kaga boganaysaan haddaad cid la heshiinaysaan kaasaad go-aankiisa ku qaadanaysaan haddaad cid walba diidaysaan kaasaad go-aankiina ku qaadanaysaan intaanu nool lahay waanu u taagnaanaynaa arrimaha jiraana deegaamadan waxba kama quseeyaan dadka dad badan oo dana gaarihle waa jiraan ciddii dan gaara meel ku aragtay wax uga laacaanna waxaanu leenahay fasax baa tahay horay u socaanu leenahay arrintaa intaasaan insha allahu tacaala kaga gudbayaa intaa kadib waxaanu ku baaqaynaa oo aanu leenahay oo aanu dadka ehelka ah iyo islaamka iyo qaraabadaba u sheegaynaa abaar adag baa dhacday abaartaa ha laysu gurmado dadka gobollada wada jooga ha is caawiyeen dadka tuulooyinka jooga ha is caawiyeen dadka wax haystaa waxooda si ilaahay ugu barakeeyo ha baraarugeen qaraabadu ha is xidhiidhiso nin walba oo wax haysta ama nin kastoo tala bixin kara ama nin kastoo tamar bixin kara ama nin kastoo qof kastoo gaadiid haystow dadka qaraabadaada ka bilow raas iyo sida magta loo qaybsado ha laysu caawiyo dadka dhulka yaalla dhulka ha laga qaado roobku waa da'ayaa barwaaqana waa noqon doontaa waxaanu leenahay ha laysu gurmado intaa kadib waxaan kale oo baaq aanu ka soo jeedinaynaa colaadda ka taagan koonfurta gobolka sool labada reer ee walaalaha dhibaatada badan kala gaadhay waxaanu leenahay dhaqdhaqaaq baa hadda muuqda nabadeed cid kasta oo dhaqdhaqaaq nabadda meeshaa wax ka qabanaysa waanu ku soo dhawaynaynaa cid kasta oo dhibaato ka wada ama mas-uul ha noqoto ama qof dhallinyaro ha noqoto ama qurbajoog ha noqdo ama dhallinyaro ha noqda waxaanu leenahay war dadka masaakiinta ee carruurta ee dhibaataysan ee haweenka ee la dhibaataynaya dhibaatada ha laga daayo cid kastoo ka shaqaynaysa oon meeshaa nabad ka islaaxinaysana waa ku garab taagannahay waa ugu ducaynaynaa waxay dhahaan nala qabtaanu la qabanaynaa waxaanu leenahay ugu dambayntaan hadalkayga kaga baxaya dadka ishaye ee labada reer ee bahar sameeya khayr cabdiyow war kollayba waad heshiinaysaana maanta lana ceebow lana dhimay lana dhacan abaarna waa lagu jiraaye warar maadareelo xabadda joojiyo ilaahay subxana wa tacaala ka baqo wixii dadka idin yimaada u dheganagulaadoo maqla aad iyo aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu العالمين sida aad arkaysaan saaka waxaanu qabanay war-saxaafadeed taasoo aanu ku soo saarnay qodobadii la akhriyey sida runtaa waxaanu ka fadhiyi weynay marxaladda siyaasadeed ee gobollada sool sanaag iyo cayn ay marayaan markii khilaaf baahsan iyo burbur iyo waqti badani uu lumay isku dayadii la wadayna ay waxba ka suurtoobi waayeen waxaa odayaasha khasab ku noqday inay marjac iyagoo ummadda u ah isugu yimaadaan shirkan dhowr jeeroo horena way isu yimaadeen waxaanu aada uga xunnahay kana hor jeednaa kulamada la yidhaahdo sababay ka dhaceen wixii ka soo baxayna waa aragnay markii la qabanayana waxba kamaanaan ogeyn markan dambe laga yimina wax khaldan baa laga sheegayaa labada dhinacba sidaa daraaddeed waxaa cad in aanyan waxyaabahaasi gobolladan u cuntamin dadweynahan u cuntamin waxtarna u ahayn waxayna u taallaa wadahadalladaasi ciddii gashay cidda isu tegaysa iyo cidda shiraysa loo diidi maayo waa xor laakiinse waxaa laga wada hadlayaa masiirka ummadda cidda leh waa la yaqaanaa haddii wadahadal la yeelanayo
sida loo wada hadlayo waa la yaqaanaa lama gaadhin wakhtigaa beeshani waxay ku dhawaaqday oo isimadu ku dhawaaqeen oo dadweynuhu 95% ay yideen oo u diyaarsan yihiin in kulan weyn lagu qabto cayn gobolka cayn buuhoodle in lagu qabto shirkaas ayaa warkii kama dambaysta ahayd oo loo midaysan yahay uu ka soo bixi doonaa wixii dadku ku tashado ayaa odayaashuna odayaal ugu yihiin shirkaan ninna laga celin maayo siyaasiyiinta waa la casumay qurbajoogga waa la casumay dadweynaha kala duwan waa la casumay isimada qabanqaabadeeda iyo baaqeeda leh guddiyaha loo samaynayaa waxaan u sheegaynaa caalamka iyo soomaali iyo dadka dega gobollada sool iyo sanaag iyo cayn shirkaa in loo diyaargaroobo cid walbana wixii kaga habboon ay ka qaadato iyo kaalinta ay leedahay waxaanu aada uga xunnahay in shirkaasi uu dib u dhacay waxa dib u riday maaha wax kale ee waa abaaraha haddii abaari timaado waa aafa weeye wax walibana dib u dhacaya isla marka abaarta ilaahay naga qaado ee ay habboonaato waqti dhow ayaa shirkaasi la qabanaya ha laga soo qayb galo ha loo diyaargaroobo ha loo soo diyaargaroobo ha la tashado wixii ka soo baxaana kama dambaysa markaasaa reerku meeshii saxa ahayd ee uu u guurayey ee fadhiisanayay ay muuqanaysaa taasina taa weeye beelaha isku haya odayaashu waa ka hadleen sidaasaan wada qabnaa abaaraha odayaashu waa ka hadleen sidaasaan wada qabnaa ha la iscaawiyo dadku dad wada dhashay iyo dad islaama weeye gaaladii baaba gurmanaysa sawaaba inaga gudaheenna sawaaba muslimka waa waajib ilaahayna saaray inaynu wax istarno oo iska caawino aafooyinka yimaada nooc kastaba ha noqdeen waxaan hadal ku soo gebagabaynayaa shirkaas uu insha allahu wuu dhici doonaa kaasaa wixii xumaadayna lagu saxaya wixii tafraaruqay jirayna lagu saaraya ha loo soo diyaargaroobo waktiga uu imanayana insha allahu waa waktiga ilaahay garto oo ah marka abaartu inaga kacdo hadday bisha dambe noqoto waa bisha dambe hadday talabaad noqoto waa talabaad waxaan ku soo gebagabaynayaa hadalka hala diyaargaroobo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فك كلا يمي لا بوه جرو ميلا كلا عرولي ميلا بدل لقى كلا يمي لا سعانات وها لسوقي ما هالكن واون ضنطت كعبة لسوقي لو إن عد لو حمي أم عد وحلو يلا أم عد لو أفلك هذي لو سوقي من ورمحين ودنا دتك تردي سواب بهذي دتك تردي سو وحبضن باكيا عسن وحنو كبدين وين دتك إن لسوقي يرو سيدي رجع جهري شاجين با سيارستي لسوق الله إلهي حكمتي أبار بعملك ساق شيء تبغى دعوة يمي تبدي هدو يمي ده وحي واسكسي صعد عن قلادي كسر السيء أتصابا يجو أباري أبار لام واسكسي ريان وقانا واسكسي طوريان دت كانوا ما عنتمين هنتي دت وما عنتمين أو ما عينان ماركتين هما أي قرعين سيدا درت هاد بكلفتين لسوق يرى أن هذا ورسوك عليه إنه ماركتين كهرتا كهذا الله هذا الكسيدا سوق يمي وضياش هو مهد علينا يا صحفة هو مهد علينا يا اسم هو مهد علينا يا dadka deegaanka ah oo maartay in marti gariyo meesha suuqyada dhowrka maalmood joogana waa mahad celinayna abaartana ilaahay ha inaga qaado dadkeenu waa jilicsan yahay adduunka caalamka waxaan u sheegaynaa dhibaato aad iyo aad aan la marayn karayn baa dadkan iyo deegaanada ka jirta jaaliyadaha dibadda maamulada cidii wax siinaysa cid kastoo wax siinaysa gaal iyo islaamba way u baahan yihiin dadkani ilaahay baa la baryayaa laakiin dee uun laga maarmi maayo in la yidhahdo waryaa wax wadaho bilaadan oo la arkayaa marka lala soo gaaro biyo iyo cunto iyo wax kasta waa la jilicsan yahay iyo daawo aad baa loo jilicsan yahay ilaahayna waanu baryaynaa oo gacmahan kor taaganaa ilaahay inuu isaga wax bixiye inuu dadka soo qaboojiyo sida la sheegay beelaha ishayo oo ama xaggan dhinaca tale lafteeda sayntii way ka jirtaa weli iyo xagga hawdkaba waxaan maqlanay qolyo lascaanood ka yimi baa hadda wada inay maaragtay lascaanood yimi baa hadda wada inay dhex galaan annaga muddo fara badan iyo waqti badan oo sanada gaarayaan ku liminay waa nagu adkaadeen ciddii kale oo timaada baanu taageeraynaa oo soo dhaweynaynaa si dhiiggaasi u joogsado aadna waaga xunnahay kama seexano habeen kasta marka wax la soo sheego
iyagana ilaahay ha kala badbaadiyaanu leenahay inahaasaan kusoo gorgar hadeerna ugaas faarax oo inoo duceeya oo rogo ugu weyn baan ku wareejinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi